marka ugu horeysa waxaan jeclahay in halkan dadka uga toofiyo qaalaha xafiiska rajada kuwaasaan ku bilaabaya oo aan ugu bilaabaya sababta ahaantii waxay muujiyeen inay yihiin dad maxaa la yidhaahdaa mar kasta ku garab taagan aniga shaksiyan si doonaya ii taabanaysa waayo maalintii qarabka dhacay dadkii ku dhintay ay ka mid ahaayeen allah naxariistay cabdifataax salifbaadiye oo ka mid ahaa maxamed cilmi oo ahaa xarooyin joogtada ah haweenkiisii oo ka mid ahaayeen personal runtii aniga ciidankayga markaan ahaa ilmufalkaas oo oran jiray laba nin oo kale afartuba ay lixdaas ay ku dhinteen maalintii central hotel markii dambena aniguna dhaawacnay dad badan oo ay ka mid yihiin magaalada ma ima muuqdaan laakiin waxaa jooga ururkaa jooga halkan taagan albaabka wasaaraha taagan waxaa ka mid ah cabdirashiid maxamed aniga la shaqeeyo dhagaweyno ugu weyn iyo rag badan oo kale ayaa jiray iyaguna intuba ku dhaawacnay maalintaana qaraxa ugu dhacay laba shayba waxaan jeclahay marka inaan uga mahadcelin intaa waxaan kusii daraya intii kale ee iyaguna ku dhimatay ayaa jirtay oo ahayd dadkii ama si goonigooniya loo toogtay ama qaraxyadii kale ku dhintay oo ka mid yihiin bashiir ninka allah yarxama loogu dama bashiir oo loogu magac daray albaabka beydka imika laga soo galo kashmiir oo isaguna halkaa kula dhintay iyo waxaa jiray oo kale mordeer allah yarxama oo isaguna si gooniya ugu dhintay maxaa la yidhahdaa qaraxii dayax dadkaas oo dhan ama ha noqdaan amni ama ha noqdaan shaqaalaha waxa weeye runtii wax aniga wax ii taabanaysa inuu xubnad ballaaran ugu soo jeediyo oo runtii aan la mahad celiyo labadii sannadood si sharafta lahayd ee runtii howlkarnimada lahayd ee laga soo shaqaysay hadda waxaa ii muuqda bashiir maxaa la yidhahdaa xisib ka tirsanaa bashir cabdullaahi waxaa ka mid ah maxaa ayaale maryam ملوكة هذا ملوك أنا حاسس عسكر وبدين والله ما يلسوا الشقية بس سكاري يلسوا الشقية حفيز كارهان يلسوا الشقية لكن أنا أعرف أن هذا الأمور ما نعرف أنت أمرك الذي ما دام فعلا إن يجنا أمور هذا العلم أنت أعرف أن هذا الحد عيسى قريبا عن دنيا هذا شيء إمام تيمان هذا شيء واضح maalintii qarb markuu dhacay wixii igu daraa markii soo noqday waxay ahayd inaan ogaano maxaa talo loo qaban karaya dadka ku dhinta ama ku dhaawaca iyagoo hawl qabanaya maxaa loo qaban kara ilaa maanta dowladda gaarinta waxaa la doonayaa markaa in siyaasad ay ka yeelato dowladda oo dadka reerahoodii ka baxay in wax loo sameeyo ayaa mid muhiima iyagoo la dhaawacayni shaqa ma qaban karayaan uu naafooday waa in wax loo qabto inteen waxyaabaan iyagoo keliya ahaayeen dadkii yani ku keenayay ama ahaa cidda keliya markaa reerka kafaaladeeda haysa marka waxaa laga rabaa in hadda laga bilaabo laga fikiro sidii dadkaa wax loogu qaban run ahaantii ah muhiimad weyn u leh damaan waan ka xumahay inaan isuutoogin inaan wax uga qaban karaya arag intaa marka laga yimaado waxaan jeclahay inaan umahad celiyo مدير حسن شيخ وروتي نيو وروتي لها مدير وشقين في عن ليالي وروتي كل سنة احترام نيو شقيقة وأنا لهم هذا سيدو كلا وحنجعل أنا لهم هذا العلوم إذا وزارة أنا أبشي وقلنا مصاحب دارين لكن كنت مدير وشقين لفتين عن روتي آدي صور وشقين سيدو كلا وحنجعل أنا لهم هذا العلوم وليه مثيلا وشقيني لما كنا نقول شوغا خالد وصالح وعبسي نقول شوغا وحنجعل علينا من بلارة وشوغ شوغي حجبانا دي على بعضنا في السبالات ونانتو يقنا هنا كم هذا العلم وحكلوا ما هذا العلم يا جماعة تفكر إيش كذي صدرا كم هاي ميزان كم ها انتوا كم هاي تدخل وإيش كذي بس يقنا ما هذا العلم وحكلوا ما هذا العلم شغالي يعني هذه كلا يصير مثلا ACU على environment انتوا هايان بس بدي سلوكات
أنا ولا شقينا يجنا وما هاد علمنا واحد جعلنا وما هاد عليه عيدك هو يجارك أمنية هو حفيزك هو أوروك هو هورنتا أنت ما هاد علمنا سيدي ولا سيدي ولا شقينا وحكينا وما هاد علمنا يا كمان إذا ما البودهان ويوم نقطة تقريبا كها أمنية يهجاتين فيه وما هاد علمنا يجنا waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale hay'adihii qaramada midoobay iyo international partners iyagana waan u mahadcelinayaa wabshaqeynta wanaagsaneed ee laga dhexaysay waxaan iyagana u mahadcelinayaa dhammaan dadkii shaqaalihii meel kasta ay joogaan madaxdii kale ee hay'adaha dowladda iyo dowlad goboleedyada oo iyagana ay muddadii aan wada shaqeynay runtii shaqo wanaagsan iyagana iyo cid mar walbaba la yidhaahdo mar walba oo runtii ah يعني أمام فاميلي حاسس كذي عروتي أنت أمام وأنا كل الوقت يقرأ والله هالعلم إن دي سبران وروتي يعني وقتي دي هاي أنا جاي جلس وله أي هو قراره إن الصومال أو تقطع مكان والله هالعلم ما نقص بدأ بتشعلها هنا نسير وقوم مرة يعني نص طويل وقوم لها وحاولنا نبص لدور قبل السنة نوصل تنبسي كل يوم بيروتي أنا أقول لك مثلا أحكم إلى أمني وقرن على security national security policy سياسة أمني وقرن وصدق قيمات كقوة من سياسة سياسة من هو مرة هو هلا هلا إذا هذا خطرها الحين قوة جهنم على هذا ذلك تاسمه كهو national security assessment تيجي من قبل سبت هو ولا سنين سنوات وحوالي البوليسي التي مكايدو السرية هذا السنة بوليسي كان مكان عمره طابق قانون كان إندور مبلغين لا شك يجنا مكان يعني شو تقل مقام إن لا شك إن كذا أو أي فهمة إن السيدي لا صغير لها هيكل محل هذا أما قاب السنة أمن السيدي لا صغير سيدو كذا sidoo kale marka taas marka asaas ku heshay sidoo kale waxa iyadana oo socotay oo dowladda jiray ama siyaasadda lagu hagayo amniga qolaha ama maritime security coordination committee oo wasaaradda ka kooban oo ka mid yahay wasaaradda gaashaandhigga cadaaladda arrimaha dibadda amniga kalluumaysiga وضح في سنة البناء رئيس الوزراء توني جنرال كلفتيس وانتوا بقى يعني هاي هذا جاء من هاي وحاولوا من سنة واحد سنين نص علمها أودي دولة أقول هاي لا أنت حلوة وتكلمت أهمها براءة الصومال ولله الحمد حفظنا يعني أساس النص كل شيء إن على مطلب ثلاثة الصومال مركي وأنا واحد شيء واحد United Nations contact was off the coast of Somalia. أنا شفتي ورنتي يوم ما عملوا شفتي وما عملوا شيء واحد طاقة وورش تاني هذا تي ولا بدلي حلوك تشوي الله في Somalia كارو يمد وقال على هذا region وأنا نقول كتابي سمع كم الحين باتة أنا ما أقول أبو سافسن region أبو سافسن أي مكان region كا أوردن الجو الهواء في Somalia بس عشان Somalia مكان واحد سيدو كلا لما يستمرون يقولون بسيء أنا أخش في واحد هنا نيو ديل ونمشي ونوصل صحيح لما نقول صدق حيث واحد لكن الكلمتيس هو كذا نيو ديل كان نمشي محيالها ومهم سنة واحد إن كسروا نمشي مثلا كم نايم هذا من ينادوا هو واحد سيدو الله ليش أو حساب تفكر ليش international community لكن عاوزة يدورون الصومالية أوجو وديران I think that تاسع مهم تقول وين اللي هي كده النظام
lagu wada xisaabtami karayo taasna waxay u gashay labadii sannadood muddadii imkaan joognay ayay hirgashay waxyaalaha ugu muhiimsan ee la oran karaya waa maxay inta mashaariic ilaa 9 baa ku leedahay shuruucii in laga fuleeyey dalka oo 9 kaba laga guurgareeyey SDRF-ka oo ah maxaa ugu sareysa waxaana si wanaagsan maanta tii ay isbedeshay oo ay gelayso heerkii National Development Plan oo muddo ka soo shaqeynay ilaa 2 sano sanadii bar aan ka shaqeynay oo ka turjumaya baahida ka jirta dalka iyo maxaa la yiraahdaa sidii loogu sameyn lahaa in kaabayaasha dalka uu baahan yahay oo lagu saleyn karayo marka in waxaan laga hadlayo new maxaa la yiraahdaa partnership agreement in marka lagu saleyn karayo sidoo kale waxaa runtii noo suurta gashay iyadana oo ku saabsan taas national authorized officer inay suurtagal noqonayso oo khadmad ka shaqeynaysa muddo dheer in la soo xiro oo saxiixa ay ku lahayd dowladda Soomaaliya iyo halka EU ay wada shaqeynteedu ay markaa noqonayso markii hore waxay ahayd ama ilaa ma kala socoto wax weeye waa direct execution inay iyagu leeyihiin awoodda ay ku fulinayaan in mashaariicda ama lacagaha lagu taana ku doonayna waxay ahayd inay national execution timaado oo markaa national authorized officer uu yeesho awoodda ay markaa mashaariicda lagu ogolaanayo taasaana ilaa muddo laga soo shaqeynay insha allahu tacaala waxaan filayaa inay noqon doonto waxyaalaha ugu muhiimsan ee aad u baahan tihiin inaad dhamaystirtaan haddii aad arrinka finance marka loo soo baxo waxaa ilaahay mahadiyey maanta in nidaamku dhisan yahay waayo waxaa ka dhigata sloganka ah corruptionka la dagaalanka nidaamka maanta wuu dhisan yahay because number 1 afar shay baa maalintaa markeena doonayay in aan ka bedelo afar shay baa lagu xidhay afarta shay lagu xidhay waxay koo credible budget inay jirto miisaaniyad yani macquula oo sax inay jirto labo in waxaa la yidhaahdaa arrearskii ama deymankii hore jiray in wax laga qabto dowladdu waa leh domestic arrearskii ama deymankii taagnaa dowladda in loo sameeyo management loo sameeyo currency-ga oo ahayd in lacag Soomaaliyeed lasoo sameeyo iyo reporting oo ahayd in mar walba si joogto ah loo reporto afartii inteedii badneed waa lagu guulaystay oo waxa weeyaan waxa loogu guulaystay koo credible way tahay oo haddaanay ka wada shaqeyn World Bank iyo IMF aanay ka wada shaqeyn wasaaradda finance aanay ka wada shaqeyn budgetka ma noqonayso in markaa waayo waxa la doonayay inay dakhligaaga iyo kharashkaaga ay miisaaman yihiin tiina waa waxyaalihii aan isku dayno dhibaatada halkay ka timid waxay ahayd markii revenue hoos u dhacay ee ay suurtoobi weydeen in revenue halkii la rabay uu soo gaaro taasaana u baahan xoojinta in waxay u baahan tahay already siyaasadda weydiinta halka waxaad u baahan tihiin inaad fulinteedii aad la timaadaan oo runtii aad markaa keentaan in maxaa la yidhaha dakhli ururintu ay kor u qaado taasaana runtii keenaysa oo yareynaysa maxaa la yidhahdaa musuqmaasuqa waayo musuqmaasuqu wuxuu ka bilaabmaya marka dakhligii yaraado ee wasaaraduhu wada tartamaan ama maxaa la hay-aduhu tartamaan tee budgetka loo soo deynayo ayay markaa noqonaysa halka ugu horeysa ka bilaabmaysa marka si aanay taas u iman budgetkiinu waa in isku miisaanaadaa oo si markaa ay taas u yaraato arrinka kale iyadana maxaa la yidhahdaa waxa weeyaan waa life dadka wixii la gelinaya waa life maaha sidii maxaa la yidhahdaa imika waa la ogaan karaya waa FMIS-kii ayaa keenay inuu markaa saas hawsha u galo waxaa kale jirta in legislative frameworkii la sameeyey ama qaab dhismeedkii wixii la sameeyey shuruucdii loo baahnaayo dhan la sameeyey hadday tahay tii maxaa la yidhahdaa procurementka hadday tahay tii anti-money laundering ay ka tahay hadday tahay maxaa la yidhahdaa kale foreign investment law oo weliba kii in saddexdaba la sameeyey waxa dhiman oo kii audit-ka weli outstanding ah iyo ka PFM-ka isaguna ku soo jira maxaa la yidhahdaa ku soo jira dariiqa ilaahay iyagana waxyaalahaas waa waxyaalaha idin yaalla loo baahan yahay waxaa iyadana sharaf noo ah inaan nidhaahno 20 sano kabacdi ayaa IMF-ka iyo IFIs kuwa la yidhaahdo oo dhan ay oggolaadeen inay Soomaaliya dib ugu soo noqoto oo markan ay chapter 4-ka la sameynayo oo markan maxaa la yidhahdaa ay keenaysay la oggolaanayna Soomaaliya after 20 years 20 sano kabacdi
inay markaa la ogolaado waxyaalaha runtii ugu wanaagsan ee la oran karayo aan qabanay muddadii oo runtii la doonayay imikana in halkii laga sii wado siyaasaddu ay sidii noqoto oonay noqon in maxaa la yidhahdaa laga bedelo oo si international engagement ku jiray iyadana loo samayn karo sidoo kale waxaa iyagana engagement fara badan la sameynay United Nationska iyo international partners international community gaar ahaan weliba khaasa marka lagu yimaado HLPF-ka iyo High-Level Partnership Forums waxyaalaha oo runtii ay shirarka ay ka soo qaybqaadaan kii loo socdo London waana muhiimad weyn u leeyahay si markaa loo heli karayo in our partners international partners iyo donors iyo wixii oo dhan ay ka qayb qaadanaya inay dhismaha iyo developmentka ka qayb qaadanaya in iyaguna markaa ay noqdaan on board kiina waxaa la rabaa inaad dib sidii ama marka uu shaqeynaya si lamid ah aad uga shaqaysan haddii alla marar badan isku aragti kama noqonaysa waxyaalo fara badan laakiin waxaa muhiim ah in la sii wadi karayo oo markaa ay Soomaaliya waxaa la yidhahdaa iyo waxa muhiimadeedu tahay Soomaaliya sidii wax loogu qaban lahaa in markaa ay noqoto maqsadku waa kaa wey round tables waa samayn jirnay iyo United Nations waa samayn jirnay round tables si looga saaro oo maxaa la yidhahdaa laisku dayo in wixii khaladaad jira looga wada hadli karayo round tables markaa inaad sii wadi karto hadda qodobka kale waxa weeyaan oo loo baahan yahay waana climate prevention yani maanta waxaan ku jirnaa abaarihii way soo noqnoqonayaan maxaa inooga yaalla markaa la suujiyo waana waxyaalaha ilaa u baahan xoog national development plan waxyaalaha u taabto waxaa ka mid ah taas oo resilience-ka ah ama adkaysiga abaaraha inay noqoto waxyaalaha maxaa la yidhahdaa loo baahan iyo in laga tarjumo laga taabto sidoo kale environmentka wixii ku saabsan wadada marka in bilowdaan dialogue sidii loo sameyn lahaa mashaariicda wax kastoo la sameynayo ay laba shay noqdaan inay noqdaan humanitarian yes iyo relief oo wax imanka degdeg wax u qabanaya laakiin at the same time inay noqoto wax mustaqbalkana wax u qabanaya marka aragtida gaaban iyo aragtida fog labadaba inay meesha noqoto waxaa kale maanta nasiib wanaaga inaad la wareegeysaan ama la wareegteen iyadoo dhammaystiran maamul dhisidii dalku dhammaystiran oo state formationku soo dhamaaday labada masalan galmudug iyo hirshabeelle waqtigii ayaanu joognaba ayaa la dhisay labada kalena south west iyo iyagana waxaan ka caawinay meelo adkeynta maamuladooda waxaa kale qabsoomay doorashooyinkii oo maanta maqaadkama fadhinay bilaabada madaxweynaha cusub intuba ay ku yimaadeen qaab laakiin si loo helo one man one vote maxaa loo baahay inaad kula shaqaysaan maxaa la yidhahdaa dowladeedyada aad la shaqaysaan sidii loo daadijin lahaa maamul oo xagga ay ka iman lahayd in la dhiso golayaashii deegaamada la dhiso marka taasaa muhiima marka si ay one man one vote u iman karto haddii aanay deegaamada golayaasha deegaamada aan la dhisin waxay adkaanaysaa markaa inay timaado in la heli karayo one man one vote waayo waxaan dib ugu noqonaynaa si ahayd deegaan baan ka dhignaa waxaanu ka dhignaa caynkaas marka waxaa rabaa inaad kala shaqaysaan goboleedyada inay ka shaqeeyaan taas arrintaas aad looga fiirso arrimaha Somaliland iyagana waa mid muhiima oo weliba u baahan in la bilaabo wadahadalkii oo markaa dowladda Somaliland iyo dowladda federaalku ay ka yeeshaan ka wada hadlaan wadahadalkaasina noqon mid dhab jiddi oo aanu noqon inuu iska maxaa la yidhahdaa waqti dhumaysa laakiin laga hadlayo waayo waxaan ka hadlaynaa waa mustaqbal oo amniga hadday noqonayso hadday dhaqaale noqonayso hadday si wada noqonayso hadday noqonayso midnimada hadday noqonayso siday doontaba dhinac kasta oo ka eegtaba inay muhiim tahay in maqaayadana dalkada laga bilaabo oo weliba la xoojiyo oo si labada dhinac ku qanacsan yihiin marka loo dhammaystiro haddii aan arrimaha kale ee dhimayaan waxaa ka mid ah dhinaca siyaasadda waa dhammaystirka dastuurka weliba arrimaha siyaasadda way u baahan in dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu isla gartaan si awood qaybsiga mas-uuliyadda iyo resource sharingka maqaamka caasimadda iyo qaabdhismeedka amnigu uu noqdo waxyaalaha laga wada hadlayo ay ka wada hadlayaan dowladda iyo maxaa la yidhahdaa iyo dowlad goboleedyadu haddii si gaar aan usii taabto resource sharing waxaan ku guulaysanay in la sameeyo heshiis hordhac ah
ودولة فدرال كبس حتى لو دولة دولة محل هذا الجلود يقوفوا الدولة واحد من تصلح الكلام كنت ما نجيبنا يهر شباب يجينا واحد اللي كرره إذا الشيء كاس صدق دون لا ويجي أي ديتين هنا كلام الأشياء عندنا بعد ما المركز اعتماد إنه الشيء كاس ولا كل كلام واحد يدنا محل هذا أنت كلام اللي هم طلع سياسيين واحد نقول شغالة دولة إذا مرة الجبانة دي هو يكون هذا يقولي وزير له أنت مشاهدة تبقى كم مكايدنا إن لا صاروا على دولة سيدي قوة إلها وأنا يعني مرة وضع أنت أنا نقول إن السكيل لكن ما أرضى إننا أوش أنا الناس أرتان هالجال وتبينت وحيالات على إن تاسوا كمل بيأدب ويلا مشكلة مني أنا وممكن أنا غلط شو يا اسماء بيأدب نجاح استوى حتى روبوت وحيرين يا واحد بيديه ولا حال حالة واحد بس اللي كنت يمكن نشوفه biodiversity واستراتيجية الوصولية والشيء اللي هو علينا هذا حالف لبا أنا سنو كلا لسنة كنا نكمل نقوله على هذا COP 21 وهي climate change climate change اللي هو هي سبب التعاملات اللي هو هي فكأن يرانا مثل لو تفحيتك ومن هنا أيام هاي مسار أيام دلوقتي وحكلايا إنك تكتب أوزون وهذا الوران كيفش سنية لو بالبالينها أو لو وجهنا هذا يعني NM كنترول ما واحد رسم في جيران ويوم سامين كله أوزون سامين كله فكأننا يرى يرى كش كأننا يعني يقولون مكان إن شاء الله تعالى هولا اسمه هولا وباهن إلا الأيرو وبعدين النهاية ستحقق البار يلفت الآن وقوة وقوة رئيس الوزراء الحين يوم وين في المياه شنطة أول السنة وصل بيس حياة ما بعرف كيف واحد كذا مرة وهو expectation أما السيدة اللي وقف مختلفة كثيرة يعني يحقق بالآن بالوكرة فوق capacity institutions كأما اللي هي institutions ومرة كاتو من لفتة الوطن يمكن لسه أيات شفتها ويوم الوطن يعني إن لكن مسؤول مزاج وحلاقيها وأنا أقول إن يعني إن إلهي في مرة عبر إن same problems كنا نقصده إن مشاكلنا كنا نقصده ولا من لما يجي اللي كنا حتى يتبع لكن واحد الدنيا إن كنتي حياة فرقان كو إن عندك كويس لو dedicated staff ما نظام وليك محجوب لها يقولون كبرتشوب هذا ما هو كويس ولكن هنا وصلت شو نبدأ بكتير يقولون كدياس ولا تقول كتير والله ما هو كويس وأنت بقى expertise كوبا ولا أيام مهم وحلو بقى إن أركزت لو تشيل وأنا لب because مرور مرور ما هتبدأ لب إن الكاب وتشوف طبيعي ممكن يلا إن كان أبوش كيلا لسه بس كيلا لسان إن المسجد أمامه على شيء يقولي إن هي بيبا ولا بيبا اللي نسوقها موكم حق أخوضوا ولا ما يصير لكن أهين كشم حاول ما يصير وكاسوي وأنا مرة نعمل بلو أي أنتوا سوتوا ما يصير أقول أنا كواحد كشامات تذكر شو هيستعمل بيه عيال كشام أنه هو السودان كنت دلالة بمكان هشيس كان وكواحد إذا لفت هنا تتسان واحد ولا يكتم بأبي وإلى من حالي هذا واحد من دونه واحد يلا فرضوا international delivery وبدون أيضوني كتير وقتان ما أعرف لكن ما هو واحد قام إنه على إلى السنة لا سنة كل سنة كمان عام دولة عام وهي تحسنون السياسات كثير
inaan dhammaantood idin wada mahad celiyo in alaalintii la soo shaqaysay meel kastoo joogtaanba inaan idin mahad celiyo intii waxay aniga yahay sharaf inaan Soomaali u shaqeeyo waxaanan insha Allah tacaala halkaas ka sii wadi doonaa wixii kale aan qaban karayo markaa waa ku soo dhaweynaynaa